kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa waxa ay doonaysaa in ay la soo seexato xidiga khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Chelsea ee Cesc Fabregas. AC Milan oo muddooyinkii dambe ay soo wajaheen dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ciyaartooydeeda gaar ahaan kuwa khadka dhexe ayaa kooxda Rossoneri waxay u badan tahay in bisha January ay la soo wareegto ciyaartooy si ay u xaliso xaaladda adag ee iminka ku jirto. Leonardo iyo Paolo Maldini ayaa goor horeba bilaabay in ay ka shaqeeyaan sidii kooxda 2 ilaa 3 xidig oo cusub loo keeni lahaa horaanta sanadda 2019. sida laga soo xigtay ila ku dhow majalada calciomercato.com ayaa waxay u muuqataa in Leonardo uu xiriir la sameeyay Cesc Fabregas sidii uu keeni lahaa garoonka San Siro xilli xidigan u dhashay dalka Spain heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea uu dhacayo goordhow. 31 jirkan ayayna u badan tahay inuu ka tegi doono garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London. Ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso.